السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسمايد الله كسو دوادا يوتيوب channel كيغا Bake with Asumi channel dadku cusub tahay oo tahay markii ugu horeysay soo booqatay fadlan subscribe insha Allah maanta waxaan idin la wadaagayaa alaabta hortiina taala waa white chocolate marka insha Allah maanta waxaan idin la wadaagayaa sidaan u sameeyay maadaama ay ciidii soo dhowdahay oo loo baahan yahay ciida wixii la sameeysan lahaa waxaan idin la wadaagayaa insha Allah sidaan u sameeyay waa chocolate brownies waa tan qiyaasteedii iyo waxay ka koobnayd waxay ka kooban tahay 160 gram oo ah daqiiqdu waxa weeyaan plain flour 150 gram oo ah white chocolate 50 gram oo ah buskud 100 gram oo ah butter aan dhalaaliyay 2 xabo beeda mulqaacada marka afar loo qaybiyo qayb baking powder iyo in yaro milix buskudkan isticmaalaya waa buskudkaas biscuit laakiin haddaad rabtid buskudka kasteed haysatid baad isticmaali kartaa insha Allah anigu maanta kanaan isticmaalaya marka sidan u sameeyay iyadoo faahfaahsan insha Allah videogan aan idin kula wadaagaya waa brownie laakiin way ka fududahay brownigii marka waxaan sameynayaa waxaan isku darayaa butterka iyo brown sugarka butterku waan dhalaaliyay iyo brown sugarka waan isku darsanayaa markaan isku qoosho waxaan sameynayaa beedkan ku darsanayaa beedka waxaan sameynayaa jabcad gooniyan ku jabinayaa si aan iskaga eego in xabad xun ku jirto amba uu galka beedku igaga daadanin marka waxaan sameynayaa xabadba mar baan jabinayaa markaas sidaan u eegaya waad isku qooshaysaa runtii aad bay u fududahay mishiin uma baahna waqti badan kama qaadanayso waxaad samaysaa butterkii waxaad isku qooshaysaa brown sugarka markaad si fiican iskugu qooshtidna beedkii baad ku darsanaysaa markaad intaas si fiican iskugu qooshtid dee wixii qalalnaa wax kaloo qalalanba mu jirin dee daqiiqdii iyo milixdii iyo baking powderkii intaana ku darsatid si fiican baad iskugu qooshaysaa waxa muhiim ah dee inaad si fiican isku dhex gelisid beedka iyo sonkorta iyo butterka si aan kaaga qalalin oo ugu filnaado liquidku waxaan sameynayaa milixda iyo baking powderka ayaan ku darsanayaa daqiiqda baking powderka isticmaalaya waa xawayaan mulqaacada marka afar loo qaybiyo qayb waa wax yar haddaad rabtid waxaad isticmaali kartaa baking soda haddaad rabtid dhexda inay fudge ka noqoto oonay aad u qalalin haddii kala rabtid inay keeg oo kala noqotona baking powder baad isticmaali kartaa marka waxaan sameynayaa daqiiqdii baan ku qooshayaa daqiiqda marka si fiican u dhexgeliyo dee bas way dhan tahay wax kale kuma darayo caano uma baahna amba liquid kale uma baahna waxaan sameynayaa inta markaas ku qoosho waa chocolate-kii iyo buskudkii ayaan ku darsanayaa buskudka xitaa haddaanad haysan waad iska dhaafi kartaa waa chocolate-ka ku darsan kartaa halkan waxaad doontid waad ku darsan kartaa haddaad rabtid fruit la qalajiyaad ku dari kartaa sida strawberry-ga amba fruit qalalan oo kasta waad ku darsan kartaa marka waxaan sameynayaa kan insha Allah maanta buskudkaasaan ku darayaa so insha Allah videoyada dambe aan idinku tusi doonaa iyagoo flavor kala leh amba wax kale aan isticmaalayo insha Allah maanta waa chocolate-kaas iyo waxaan ku daraynaa buskudkaasi inta markaad si fiican isku dhex gelisid waxaad sameynaysaa dee tinkii waa inaad diyaarsatid aad ku dubi lahayd qiyaastan waxay ku dubaysaa 8 inch marka insha Allah waxaan sameynayaa tinkeygii oon diyaarsaday baan soo qaadanayaa tinka waxaan ku dhex ritay baking paper butterna waan mariyay laakiin haddaad haysanin baking paperka waxaad sameyni kartaa un dee butterkaad marinaysaa badanka kuma dhegto si fudud bay uga soo baxdaa laakiin waa inaad sugtid intay si fiican wada qaboobayso markaasaad ka soo saari kartaa waxaan sameynayaa markaan ku shubo tinkii ovenkan gelinayaa ovenka waan sii kululaystay waxaan geystay 170 ofinku markastood wax dubaysid waa inuu ku kululaado inuu ofinku ku kululaado waxay ka caawinaysaa waxaad dubaysid inay temperature slee ku dubanto keeg oo kale waxaad arkaysaa haddaanad sii kulaysan keega dhexdu ka qarxaa because dushana markiiba uu ka bislaanayaa hoostana uu ka qoyanaanayaa tanna waa la mid marka haddaad laakiin ovenka kulul gelisid level bay ku noqonaysaa
kaama kala dhaadheeraanayso keegu kaama qarqarxayo dee siro slag buu u dubmayaa markastoo wax dubaysid waxaad u baahan tahay ovenka inaad sii kuleysid insha Allah ovenka wuxuu igu jirayaa 25 mir ilaa 30 mirir ovenkii waan kasoo saaray waad arkaysaa masha Allah sida u bislaatay sida level u noqotay waxa iga caawinaya waxa weeyaan ovenkii aan sii kululeystay markastoo wax dubaysid waa inaad ovenka kululeysatid masha Allah dee quruxda sida u ekaatay waad arkaysaan quruxdeeda waxa ka daran wallahi dhadhankeeda is really nice waxaan sameynayaa biscuit spreadkaasaan dusha kaga darayaa iyo buskudkii dee sida doontid ugu darsan kartaa haddaad rabtid mulqaacad bad ku dul shubi kartaa mulqaacadaada dardarsan kartaa anigu waxaan isticmaalayaa piping bag baan ku shubayaa marka biscuit spreadka waan dhalaaliyey waxaan sidan u dhalaaliyey biyo kulul baan dabada ugu riday jabcada amba haddaad microwave haysatid waxaad samayn kartaa microwave taad gelinaysaa 30 second then waad ka saarsaa waxaan isticmaalayaa piping bag aan isticmaalayo anigaa samaystay ma soo iibsado markaan rabo inaan wax yar isticmaalo kuwaasaan isticmaalaa unless aan laakide wax badan karin badan waxaa isticmaalin kuwaasaan isticmaalaa waxaan ka sameeyaa baking paperka marka insha Allah video baan ka samayn doonaa waan idin la wadaagi doonaa sidaan u sameeyay waa very easy waxaad u baahan tahay inaad baking paper haysatid marka adigaa samaysan karaa size-kaad rabtid intaad rabtid baad leekaysiisan kartaa marka insha Allah waan idin tusi doonaa halkaasaan ku shubanayaa dan waxaan sameynayaa dee afkan ka jarayaa si aan halkaa hadhow ugaga decorate gareeyo brownigii haddaad rabtid sida ay tahay baad ku cuni kartaa bas sidaas baabay nice ku tahay haddaad ralaakide ciidiyo kale birthday haddaad sameynaysid dee waxay u baahan tahay extra toppings marka insha Allah buskudkii iyo waxaasan ku darayaa dee waad aragtaan saasaan u sameeyey waxaan sameynayaa afka in yar baan ka jarayaa xoog ha uga wada goynin haddii kale way kaaga wada daadanaysaa si fiican kuguma qurux badnaanayso amba dee si waaweyn bay ugu shumaysaa hadhow isku wada darsamaya markaa si yaroo liidliidaad ugu shubaysaa sidaad jeceshahay qiyaastaad jeceshahay haddaad ku badinaysid haddaad ku yaranaysid waa choicekaaga ila soo sheergareeya haddaad samaysaan sawirkan insha Allah dee waad aragteen sida easy u tahay uma baahnaa wax badan tacabka ma qaadanayso then on ku huwa maalinta ugu horeysa tijaabisid waxay ku noqonaysaa taas oo kale uma baahna practice iyo inaad ku celcelisid iyo waxaas waxyaabaha qaar badanka baking waa inaad ku celcelisid inta gacantaada de la qabsanso laakiin tan waa easy waan kala jarayaa dee dhexdana idin tuso dhexdiyo buskudkii ku jiro oo dee Allahumma salli ala sayyidina Muhammad white chocolate-kii dee hadal ma karayso wallahi insha Allah so yummy haddaad Bristol degan tahay waad iga soo dalban kartaa haddaanad Bristol deganayna dee waa inaan kula sheergareeyo rasabigii waa inaad ila dubtid insha Allah sawirka ila soo sheergareeya snapchat-kayga asumi1 instagram-kayga asumi1 wakaas oh masha Allah look at that the white chocolate buskudkii dusha sare waxay ka noqotay like buskud oo kale dhexda waxa weeyaan like the fudge masha Allah so nice let me taste it so yummy masha Allah yeah dee tan hadaad samaysid adigaaba keligaaga dhamaynaya se waa inaad like dee dadku markay kula sheergarayn inaad samaysid insha Allah channelkana like and share subscribe